qalab kale oo asigana waxaa jiro oo loogu talagalay inaa isticmaasho markaa rabto inaa wax sawirto. Waxaa loo yaqaanaa qalabkaas circle. Waxaana loogu talagalay inaa koobaabin ku sawirto ama sheebiyaal kala duwan inaa ku sawirto ayaa loogu talagalay sida qalabyada hore kale aa soo isticmaalayna. Waxaana laga dhex heli karaa qalabkaas menuga kore meesha kasoo dhex dooranayna rectangle-ka haddaa xasuustaan meeshaan menuga kore waxaa kale ku dhahdaa falaartan yarista madowda hoos u jeeda kale ku dheh waa kan ama waxaa isticmaali kartaa keyboard shortcut adigoo hal mar taabanayo C. marka qalabkan markaa intaana wax ku sawirin ka hor mid ay idin sheego koobaabin markaad sawiraysid sketchup dhexdiisa ay isticmaalaysa qalabkan loo yaqaano circle. Ogaaw koobaabintaada waxay leedahay caadiyan 24 dhinac. Sidee ku ogaaday? Haddii ay la fiirsaan dhalada dhinaca midig meesha ugu hooseyso wuxuu noo sheegayaa koobaabintaas sawiri doono inay leedahay 24 dhinac. Waa ka bedeli karnaa dhinacyada ay lahaanayso koobaabinteena. Markaa rabto inaad qalabkan wax ku sawirto waxaa u suubinaysaa marka ugu horeyso sida kuwa hore oo kale meel aad ka bilaawdaa dooranaysaa sida meeshaan oo kale rabnaa inaan ka bilaawno klik ku dheh sida kliktaas mouse-kaaga dhinaca rabtid u jiid haddana klik ku dheh ee sida. marka circle-kan hadda marka koobaabintan marka kor loogaga jeedo waxay u eg tahay koobaabin oo toosan oo fasiix ah laakiin haddii aan ku dhaweyno ila fiiriya waa u jeedaan inay leedahay koobaabintan dhinacyo badan ilaa 24 dhinac. marka kaba soo qabo waxaa rabtaa dhinacyada leedahay inaa yareysid ama inaa badisid mid waa suubin kartaa oo ah in circle cusub noo sawir koobaabin cusub noo sawir klik ku dheh mouse-kaaga jiid klik ku dheh sida kadib waxaa kor imaataa koobaabinta sawirtay korkeeda imo adigoo saas u kor jooga waxaa qabataa keyboardka buttonka ku yaala control qabo kadib waxaa taabataa keyboard buttonka ku yaala oo ku sawirantaa calaamadda pluska ama minuska. midda pluska haddaa taabano dhinacyo ku darayaa midda minuska ku sawirantaa haddaa taabanana dhinacyada ayuu soo yareynayaa. haddii aa eegtaan dhalada dhinaca midig meesha ugu hooseyso markastaa taabto buttonka minuska ku sawiran yahay dhinacyada ee koobaabinteena leedahay way sii yaraanaysaa. haddii aad dhinaca pluska taabtana wuu ku ziyaadayaa. marka ogaaw koobaabintaa sawiraysid markasta ee dhinacyo badan leedahay waa markasta u muuqanayso koobaabin nadiif ah oo fasiix ah. markay dhinacyo yar leedahay oo kor loogaga jeedo waa laga dareemayaa.